wakaaladda wadooyinka Somaliland ayaa maanta si rasmi ah u guda gashay wajigii afraad ee sarfeyga lagaga qaaday wadada Ceeri Gaabo oo la filayo marka sarfeygan afraad la soo gabagabeeyo in si rasmi ah loo bilaabi doono dhismaheeda. munaasabadii lagu bilaabayay wajigan afraad ee sarfeyga wadada Ceeri Gaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay guud ahaanba wafdi oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji, maariyo ku-xigeenka wakaaladda wadooyinka Somaliland, sidoo kale salaadiin cuqaal waxgarad iyo xubno ka tirsan guddiga heer qaran ee dibdhiska wadadaasi oo ka mid ahaa Maxamuud Aadan Dhari, gudoomiyaha degmada Qoryaale iyo guud ahaan marti sharaf kale oo aad u tiro badan iyo injineerada gacanta ku haya sarfeygaasi. mahadnaqaynaa waanaanu soo dhaweynaynaa haddaanu nahay deegaanka degmada Qoryaalena 100 neef baa lagu soo qoray degmada Qoryaale iyo intay xukunto waanu ka kordhinaynaa tira aad u badan oo ka sii badan baanu ku daraynaa haddii Ilaahay ka dhigo waanu ku deeqaynaa haddii Ilaahay ka dhigo 100 neef ma bixinayno waxaanay fariin soo fareen dadku madaxweynuhu inuu isu sharaxo doorashada soo socota inuu mar dambe isu sharaxo dalka aad iyo aad baanu arrintaa deegaan 32 tuulay degmadan xukuntaa fariin rasmiya weeye taageero buuxda ayaanu haynaa codkayaguna halkii ayuu taagan yahay madaxweyne ayay ku leeyihiin dadka degmada Qoryaale xukunto farxad weyn bay noo tahay furitaanka maanta wadada sarfeyga ka bilaabmay maanta soo dhameystiran intiisa badani ee ilaa bari la soo waday ee Ceeri Gaabo ka soo bilaabmay sarfeyga ee ceelaf weyn soo maray ee garadag soo maray ee halka kan jooga ee meeshii afraad ee laga bilaabayay ee ay hay'adda wadooyinku samaysay sarfeygii soo dhamaysay ee bilaabidii uun harsan tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. December ee maalintu ka hadhay sanadka ugu dambaysa 20keeda ilaa 25keeda markabkii 21 xabadood dhageysta hadda 21 cagaf kala jaadka ahi markabkii uu berbera soo galaya ma sha Allah bal hadda ee ay dawladdu dirtay 21 cagaf ee kala jaadka ah ee wadooyinka sameynayay oo wadada sanaag loo diray ee dawladdu dirtay wuxuu soo galaya berbera maalinta biidmillaahi kariim ilaahay hayna gaarsiiyo maanta halka waxaan isugu nimi wadadii Ceeri Gaabo waa lafdhabarta Somaliland marka noo haweenka gobolka Togdheer wadada Ceeri Gaabo meel dheer bay naga taalaa ما عنده ود بن عير قابة قبتي وان يا بدك كاسو بيشي مري جرين وضدا واحد إلهي يا أبوي كان هرا وما مرين والله كوم أنقل مركي ماشي لا يقدر عمره عرض الله عمرك كنت أركب وضدا يجي مري جرين هذا هو وحنكون رجوين هاي إن لوجا مير دليو سيدي مدحوينه إنه وهلا كان أودك حدقي إن أنا جمر دلينه إن شاء الله كون رجوين هاي شغادي ويسعتا إنجنير دينا ويودان سهمنتي iyo daraasadii iyo dhammaan iyadoo dhameystiran ayay wakaaladdu wadaa insha Allah guul baan rajaynaynaa u mahad celinayaa Ilaahay baa mahad leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo aad arkaysaan maanta minitiska ugu faraha badan gudaha dibadba waxa lagaga hadlayaa waa wadada Ceeri Gaabo madaxweynuhu xuduudda iyo muruqa iyo aqliga iyo kartida uu ku faanay shacabweynaha reer Somaliland bay ahayn ما هم قرب مدوبي كموفانين مدولة كله كموفانين هم جيسة يقم جيسة حكوفاني شعب جيسة إلهي رنتينا إلهي ووهير جليي وانكو أفلحي مشروعنا ما تهورنا ماضي وحنو ملاينا يا سنة كعصب هرانتيس إن وضدنا وكمر الدولة الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن يوروب أمريكا دنيا عربتا يمال كستا. waxaa halkan laga dhawaajiyay oo laga sheegay in $4,000 ay bixiyeen caruur iskuul dhigata oo nus saacadoodii gaadhsiiyay $4,000 halka waxaa ka muuqanaysa in qurba jooga reer Somaliland looga baahan yahay hadduu alla ku rooyahay lacag iyo gacan laxaad leh oo qayb weyn oo lafdhabara ka qaadata dhismaha wadanka guud ahaan